الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha ismaamulka Mandera County ku-xigeenkiisa, ambiyada, wasiirada, madaxda, culimada, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo dadweynaha ka soo qayb galay dhammaantood. Waxaan shaqaasa u salaamayaa Sheekh Cabdisiraad. Sheekh Cabdisiraad Allah barakeeyo, inaan inta soo istaajiyaan rabe idin wada tuso, laakiin Ilaahay ha barakeeyo. xoolihiisii wixii uu bixiyey wax uu harayba Allah ha barakeeyo. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinla joogo magaalada Mandera, inaan weliba hor joogo siyaasiyiintii waddanka u talinaysay una sarreysay runtii. waxaan ku faraxsanahay madaxweyne Cali Ibrahim Robo, runtii la-aantii ma dhaceen kuwanka. si walboo la isugu daya culimada isugu dayaan ma dhaceen. inuu oggolaaday, inuu weliba fangareeyey, inuu ciidamihii ammaan keenay, inuu weliba imaanshihiisa uu meesha noogu soo qurxiyey. ilaahay waxaan ka baryayaa wixii shar Allah ka celiyo, cimrigiisana Allah noo barakeeyo. mar haddii dad ay isu yimaadaan waxaa lagama maarmaan ah anoona wacdi wadin, laakiin haddana kelimad muhiima inaan idiin sheego oo dhaxalka xabiibka salawaatullahi wasalaamu calayh. kitaabka maanta halkan la wada keenay oo meesha ku qurux badan tahay, ilaahay haynoo daa'imiye, ayaa wuxuu ina leeyahay innama almu'minuuna ikhwa, mu'miniintu waa walaalo, fa aslixuu bayna akhawaykum, walaalihiina dhexdooda walaaleeya oo heshiisiyo sulux ka rida. maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay wattaqu llaha lacallakum turxamuun. ilaahay ka baqa waad naxariis baad helaysaa. naxariistu waa waxa loo baahan yahay, waa waxa ummadda isu keena, waa waxa midnimada adkeeya, waa waxa weliba jannada dadka geeya. camal laguma galay, naxariis baa lagu galaa alle. naxariistan waxaa laga helaya waa cabsida alle iyo suluxa waaye. xabiibkeenana aan ku khatimay wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam laa tabaaqaduu. hadalka waxaa loo dhigay abaabakar iyo cumar iyo cusmaan maaha, waa weliyula hadlay, waynaa sameeyeen. maanta jannay ku galeen, adduunkana waa ku midaysnaayeen. maanta reer Mandera dadka i arkaya i maqlaya ayuu la hadlayaa xabiib sala allahu calayhi wasalam. maaha aniga waxa idin la hadlaya, waa idiin soo gudbinayaa. wuxuu idin leeyahay laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaatacuu wakunuu cibaada allahi ikhwaana. war ha isu caroonin waxba carikeena ay ka fogaada, ha isxasdina, xasad uurkiina ka bixiya, oo ha kala tegina, hana isgoynina, oo seen ku dhaqanaa wakunuu cibaada allahi ikhwaanan. ahaada addooma alle oo walaalo ah. siyaasiyiinta hal kelimad ah oo muhiima waa waalidiintay, waa walaalahay. hadda waa la wada fadhiyaa, waa saaxiibo, waa safka waad aragtaan, quruxda waad aragtaan, waa la kaftamayaa, waa urtaa la wada raacayaa. laakiin maalinta kursiga la gaaro, tartanka la gaaro, waa col iyo cadaawad, waa la dagaalamayaa. waxaan idiin sheegayaa walaalnimada isku dugsibaad ahayden, oo dugsiga soo wada dhigteen, quraan baad soo wada dhigteen, jeer baad wada ahayden saaxiibo. walaalnimada siyaasaddan way ka horreysay, 10 sano ama 5 sanona way ka dambeynaysaa. haddana walaalnimadan ilaa iyo xaggaas aakhirada la tegayaa. walaalnimada wax walba ha ka weynaata, hala tartamo, hal isxagxagto, laakiin yaan la ilaawin walaalnimada. ha laysu duro, weliba marka hal ruux uu madax noqdo, kursiga uu ku guulaysto, cafis hala weydiisto, qalaabta la isu xeelo, hala wada shaqeeyo. aad baan marka hore idiin salaamaya. hal ammaanaha waa inaad iga joogniyo. Mandera shalay baa lagu soo wareejiyey. waxaan rabaa countiga Gaarisa, countiga Wajeer inaan ka maseedsiyaan rabaa. dadka xaqooda iyo runtoodii waxqabadkooda waa la sheegaa. ilaa iyo Green County ayaa shalay lagu soo wareejiyey. magaalada oo dhan daaftaas xagka Soomaaliya iyo xagka Ethiopian tegey. runtii waxaan ku ammaanayaa governorka, waxaan ku ammaanayaa quruxda magaalada uu qurxiyey. laamiyada magaalada oo dhan saarbayga uu sameeyey, iyo meel walba inay laami tahay, laamiyadu inay nadiif yihiin, geedo qurux badan oo la harsada in uu sameeyey.
weliba shaqo abuurku uu hooyooyinka masaakiinta ugu sameeyey waa hooyooyinkeena 15 geedba berkad baa inta meesha looga sameeyey biyo loo buuxiyey ayay hooyadu waraabinaysaa mishaar bay ku qaadanaysaa marka waa ku faraxsannahay waa wax tusaale ah lagu cibro qaato looga daydo kauntiga Mandera weliba si aanan ii dhihin wadaad xoolo jeebka wax loo geliyey wuxuu ammaanayo life baan galay shalay oo aan tusayo magaalada quruxdeeda marka Allah barakay marka waxaan leeyahay wajeer inaan ku dhashay Manyaalo ayaan ku dhashay haddana waxaan leeyahay wajeer Gaarisa Mandera ku dayashay mudan tahay idinka magaalada saa loo qurxiyay nadaafadeeda idin xaqi maayo Cali Ibrahim idin xaqi maayo nadaafadeeda ilaashada dhalinyaro hooyooyin oo magaalada waa idin qurxiyay nadaafadeeda ilaaliya ammaankeedana ilaaliya wadajirkeeda horumarkeeda ilaaliya magaalada ilaahay waxaan ka bari Allah idin qaboojiyo ilaahay roob barakaysan ha keeno daad barakaysan Allah ha keeno dhalinyaradeeda iyo dadkeeda oo dhan Allah ha mideeyo uurkiina qalbi qofka iyo Allah idinkaga yeelo aad baan idin salaamay inta ka badan waa hadli lahaa laakiin goobo kale ku hadli doonaa hal iscafiyo laabta la isu xaaro walaalnimada hal la ilaaliyo ورقمان تلميذ عافيني ما يسعافيني الله يعافي الدنيا آخره